السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما waxaa ku haystaa halkan furolaato aad iyo aad qurux badan oo maasha Allah macaan badan like me. Furolaatadan sidan u qurux badan waxaa sameysay gabadha qalanjada ah oo la dhaho Samsam Gadac. Please ka heshay daawo sida u sameysay gabadhan qalanjada ah ma fahanteen. Amaan afkaaga kaaga ma horeysa ladies amaan ma fahanteen marka alas waa kaftan hadii aan ka soo tago inta waxa ku haystaa buskud awalad barafan soo jajabiyay sidoo kale caano booro iyo waxaan ku haystaa sokor xabad muus ah iyo xabad babaay aan ku haystaa arno wax kale oo loo yaqaan babaay u garanaya marka alaabta waxaan ka sameyn rabaa furolaato aad iyo aad cajiib oo macaan badan oo isku dheelitiran kal iyo laab qofkii mataqaana maalina u sameeysid waligiisna ku ilaawi maayo mataqaana markasta uu ku sheegaya wuxuu leeyahay alla inantii furolaatada ii sameysay ma iloobayo marka waxaan sameynaynaa afka hore ayaa ka jareynaa caadi ahaanta yani markasta waa afka waa laga jiraa iyo gadaal dambe marka labadaas meel marka ka jirtid kadib waxaad sameynaysaa dhexda ayaa ka jeexaysaa sida hadda u jeexayo kaleeto sidan ayaa u kala baraysaa si aad mataqaana waxa gudihiisa ku jiro aad ula soo baxdid wixii wasaqana iska daadisid sida u jeedaan asxaabay hadeertaana waan kala baray waan iska hoolayaa midihii gudaha ku jireen waa ina iska hooshid waa laazim waaye hadda kor waxaa nagu dhacday wallaahi markaa arka babayga mataqaana aad iyo aad u soo xasuustaa waa xasuus gooni ah uu ii leeyahay anigoo yar baa waxaa xasuustaa in mataqaana hooyadeeda ilaahay ha sharfo oo safar ka soo socotay baa mataqaana markay dhacdo waa soo dhawahay camal baa anigana balaa intaas ka dhigay babaayga intaas soo qaaday baa macalmirihii baa ku shiiday wallaahi ma garanayn moogtahay saa babaygii wallaahi waa la cabi weeye mataqaana qaraar buu noqday sigii dhamaa markastana xasuus gaar uu igu leeyahay marka arka waa iska qoslaa alla waagaas caqli xumo iyo caruurnimo ku qaada isdhahaa marka intii adigana dhiftaas kugu dhici lahayd oo lagu dhihi ilaa balada maxay tahay waxay soo diyaarisay iska habay marka horeeto oo mataqaana miraha iyo waxaas oo dhan iska nadiifi sida u jeedaan hadda kii hore waan hoolay oo miriyeen ka daadiyay kana sidoo kaleeto asaga dhan miraha ayaan ka daadin doonaa si fiican ayaa u sifeynaya waa u jeedaan soomaaha laablaabyada iyo waxbay u kaa dhudhuumanin iska saar hadeertaan waa saaray hadeertaan waxaa la gaaray waqtigii aan hooli lahaa waa u jeedaan hadda waa hoolanayaa soomaaha asiga dhansas ayaa u hooleysaa kadib waan soo hoolay xabad moos ayaan kusoo jarjartay sorry kaamirada iima duubin intaas waa kusoo jarjartay xabad moos sidoo kale buskud awaladkii labadii xabo ayaan kusoo dul shubay mise aan kusoo shubtay sidoo kaleeto caano bowdharkaas u jeedaan waa 2 qaado oo caano bowdhar ayaan kusoo daray iyo 2 qaado oo sokor ah macaanka mar walba fiiri macaanka markasta inta jeceshahay ayaa ka dhigan kartaa qasab maaha inaa waxa isticmaashid hadeertaana waxaa blenderka kusoo shubay shiidada barafkii ii jajabsanaa oo meesha iigu jira ayaan kusoo shubtay wax kaloo biyo kale ma isticmaali dooni barafkaas un baa ku shiidi doonaa hadeertaana maadaama aan weelkan ku shubay baaquligii marka horeeto waa isdhexgeliyay xoogaa yar waa isku walaaqay waa moos babaay sokor caano wax kale kuma jiro marka hadeertaana waan shiidayaa saa u jeedaan mise waa shiidi doonaa blenderkii ayaan kulli iskugu keenay hadeertaana waan shiidayaa saa u jeedaan maasha Allah alaabtan biyo kale kuma dareysid waxaan ku dhahay kal ilaabay ku soo baxaysaa ayadan waxaan ku dhahay wow qofkii la siiyaa wallaahi da waligii ma iloobayo marka maasha Allah hadda baaquliyadii aan diyaarsaday aan ku soo shushubanayaa saa u jeedaan si ayada dhan ismuuri u tahay u jeedaan maasha Allah ani ahaanteeda alaabtan zaid aan u jeclahay sidoo kale xaafada zaid aan looga jecel yahay markasta alaabtan hadii aad rabtid sidan ayaa ku dhaafan kartaa waa dooqaaga just ani hadda sidaan ma doonayo inaa ku isticmaalo waxaa rabaa xoogaa yar inaa qurxiyo qasabna maaha inaa baashan aa haysto kale adigana aa haysatid fiimta haddaa haysatid oo kaleeto waa diyaar ma fahamtid fiintadaada ku quruxsan kartaa muhiimadun waxaa weeye mataqaanaan inaa wixii aad adiga isku dayday yacni wixii qofkii uu sameeyey wax ka qurux badan aad samaysatid aad niyadaada gashatid marka qof kasta wixiisa asigaa quruxsan karo qofna
inay kuu qurxiso waxaaga ka sugin adiga quruxso intaada yar ah haysatid maaragtay alxamdulilah intaad hadid sameyso waxaaga marka hadeertaana wax yani ani xarakaad fiican oo yani zaaid oo lisdhahayo maanta xarakaad adag waaye ma sameynayay xarakaadkan sameynaya iyo saan wax u sharaxaya waa ujeedaan يعني wax adag ma ahan waa wax iska fudud oo qof kastana sidaas uu dhihi karaa Soomaha sidaas u wareejinaysa ma sha Allah si qurux badan oo kugu soo baxaya hadii aad san tiraadid laba jeer ma sha Allah kugu soo baxaya sida jeceshahay ayaa markasta u quruxsan kartaa waxaad markaas aad awoodid ay haysatid ayaa waxa quruxsan kartaa midaan kaleetana sidaan ayaan ku dhaafi doonaa sidaan ayaan ku hagaajiyay tii kale oo saddexaad ayaan u imaaday dadka qaar flower ay sameeyaan dadka qaar waxay sameeyaan like love oo kaleete ku sameystaan adi wax kasto yani ay sameeyaan marka adi wixii markaas niyadaada ku jiro aad taqaanid oo kaleeto ayaad ku sameysanaysaa marka ii sheeg ma sha Allah tan kaleetana sidaan ayaan ku dhaafi doonaa ayadana sidaan quruxda badan ay igu soo baxeen ma sha Allah ilaahay idin barakeeyo idinkana maadaama aad i daawanaysaan ما شاء الله waxaan idin leeyahay please subscribe hala saaro channelka videogana ii like gareeya si dad badan markaas ay u arkaan marka sidaan ay ugu soo baxay hadda u jeedaan oo quruxda badan leh ma sha Allah dana dhadhankiisa ana idin ka tijaabiyay waa caadi ma ahan waxa waay dhadhan yar oo macaan oo degan jawi degan iska ah oo kaaliska araga wax biyo ma ahan like wax zaid u adagna ma ahan wax markaas jawi degan iskaga jirto oo la cuni karo kaaliska arag ma sha Allah marka adinkana ka faa'iideysta ayaa idin leeyahay meel kasto aad joogtiin waxa idin rajeynayaa khayr bash caafimaad iyo barwaaqo meel kasto joogtiin waxa idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh samsamey haybad iyo xisho abaad dumar ugu sito cid kula siman lama aragay rabbiga kugu saacida sadqaybsigeena aqbalay rabbiga kugu saacida sadqaybsigeena aqbalay